waxaan ka hadlayno shalay anaga madaxweyne farmaajo marka aan mucaaradayna qabiil ma ahay aragti siyaasadeed haddana qabiil ma weliba nasiib darro wax xukuumaddan hadda jirta yani xilliyada dambe waxaa looga shaqaynaya qabyaaladda si aan fiicnayn war dalkan qabiil waa u burburay waa lagu aaminay dowladdaa lagugu aaminay maxaa qabyaalad uga shaqaynaysaa